waan islaamay walaalayaal meel walba joogtiin kusoo dhawaasha. Een, midda ugu horeysa oon rabo halkan aan ka sheego waxay tahay hooyaday aan akhbaar ka helay alxamdulilah shukri way fiican tahay. Een, een, xanuunka hayay waxay ahayd lugahay ka xanuunsanaysaa. Een, lugaha ayay laciif ka tahay maadaama qof weyn hayo ay tahay, balse xanuun kaloo saas ma jiraan oo desperate sida la sheegay. Runtii inaan hadda arrintaasna ii sheegana ma ahayn mana ahan. Sababta tahay dadka ila dhashay mise wixii adiga ilma adeer iyo ilma abti iyo wixii aan qaraabo ahayn oo dhan waxay ka baqayaan hadday soo wacaan inaan codka ka duubo oona YouTube soo geliyo. Runtii koleeto haddii ay laga yaabo arkaan familygayga lagama yaabo codkaaga inaan soo duubo mise aan halkan soo geliyo hooyo. Arrintaasu waan ku anaa maskaxdayda ka soo maagay inta aanan codka ka duubo aanan soo geliyo, balse waxaa jiraan dad badan oo ila soo hadlay oo dad ila soo hadlo oo runtii kala duwan inaan si kala faahfaahiyo ma rabi oo aad iyo aad sharaf ugu leh dhanka misaba darajo ugu leh dhanka xagga Soomaalida. Haddii aan cod duubo waan soo gelinayo kuwaas ayaan ka duubi lahaa soo gelin lahaa viewsna ku heli lahaa. Hooyadeedii views raadsiga ma ahayn, hanaaq iyo waxay ahayd iyo adii aan ku degdegay arrinta ayada alaa kulli xaal meeshaas hay noogu dhamaato. Hooyo dambana kama hadlaay arrinta familiga ina dhex taagan dambana kama hadlaay meeshan ay ku xiran tahay, laakiinse waa heshay inay alxamdulilah shukru ma la hadlin aniga kuleyta haddii aan dhaho hooyo waan la hadla hadda walaalahayga ayaa ku yaacayaan male balse maanta ay ugu dambeysa alaa kulli xaal aan ka hadlo hooyaday bas inaan ka warhayo siday tahay xanuunkeeda iyo caafimaadkeeda waxaas aad baan u faraxsanahay maanta. koleyta maanta uma ahayn adiga ilaa iyo waxay ahayd usbuucan oo dhan aad baan u faraxsanaa. haddii aan taa ka gudbo runtii sidaan sheegay dad badan aa ila soo hadlay. Dadka ila soo hadlana waa dad badan oo sharaf leh darajooyin leh. kuleyta Soomaaliyeed aan nahay kulligayna sharaf aan wada leenahay darajana waan leenahay, ma kala sareyno. Marka waxyaalo badan aan soo ogaaday waxay tahay midda koowaad inaan aniga aan siyaasi jiray. dadkii faraxsanaayna oo weligayga markii la saayo oo commentiye lagu soo qoro halkan adiga habeen hataa waad ka lidataa oo kontonley ah waan la yaabi jiray. Aniga lama yaabi jirin, aniga waalidataa la yidhaahay ma ilaabi jirin, laakiin waxaa la yaabi jiray habeenkaa la liidayo oo ayaan la yaabi jiray gaar ahaan. balse haddii habeenkii ay aqbaleen in ay ka kontonley yihiin badidooda aqbaleen ee dhaheen qur-aankaa sheegay ee dhahaan xadiiskaa sheegay ayaga way ku faraxsan yihiin. taasoo halkaa inoo dhiga. aniga maanta waxaan idiin sheegayaa inaan ragga ka sareeyo. ragga maadaamay boqoloo yihiin aniga 150 aan ahay, 50kaasaan aan u dheereynaa ragga. run ahaantii maanta hadduu wiilkaa dhasho hadduu familigaa ka dhasho wiil dadka faraxsan adiga ay kugu xiran tahay sidaa ula dhaqanto, balse si wanaagsan haddaa ula dhaqanto cunugaas mise gabadhaas runtii familigaaga family ka farxad badnaanayso ma lahan, ka fiicnaanaysana ma lahan. waxaan nahay qoomo maskaxdana laga soo gumaysto anakoo yar ayaa adiga caydi iyo nala soo tababara uqdada iyo caydi iyo marka waxaan nahay markii cunugu uu soo gaaro
16 jir mise 14 jir uu noqdo qofkii waxaad u malaynaysaa inuu 100 sano soo joogay mise uu noolaa waayo aragnimada kusoo kordho qofka asaga waxaana kaloo isoo gaartay oon maqlay maamooyinka inta shanaad ee Soomaalida degaan haddii ay arkaan wiilkooda jilicsan maamadaas madaxaas ayaa saluudaas loo taagaa darajo weynna way ka leedahay meesha ayada ay ka degan tahay Soomaalida haweenkeena qiimo weyn ayay xaggooda ka tahay taasna way soo gaartay runtii aad baan ugu faraxsanahay marka hooyadayda run ahaantii inay igu faraxdo inaysan iga walwalin aniga mise ay dhahdo wiilkayga caab iyo waxyaalahaas inay dhahdo horta inay ku fakarto waa laga yaabaa laakiin dad ay dhegeysataa jiraan hadday dadkaa dhegeysato way ku fikri laakiinse maanta wiilkaaga waxaad ogaataa suldaanka ugu sareeyo inuu yahay beenku uma sheega wiilkaada qabiil buu abaabulay ogaadeen nin baa lagu sameeyey magaciis ayaa ogaadeenka loo raacay daaroodka sidii oo kale hawiyihii sidii oo kale wiilkaaga maanta dadka faraxsan qabiilkaas ayuu abaabulay oo maanta berika maalin 200 sano haddii maanta la dhaho dadka faraxsanaa wiilkaaga ayaa lasoo xasuusanaya marka hooyo darajadaas ku faraxsanaa weligaana ogaaw haddii maanta aan dhintano oo gacan Soomaali aan ku dhinto oo nin Soomaali idilo waxaad ogaataa dhiigayga inuusan 100 ahayn oo 150 yahay uunasan ka yareen maxkamad walbana aad la tagi karto oo ka heli karto taa asaga haddii aad dadka faraxsan tahayna sidaas ogaada walaalayaal qiimo aad u leedahay waxaa doonto ahaa ama bottom ahaa ama jilicsanaaw weligaa ayaa lagu liidan hana isliidan adigana ha isliidan dadkana ha aaminin hadday ku liidaan ay ku yasaan marnaba dhegtaada iyaysan gelin hadday gashana ha kasii baxdo tan kale haddii aad tahay transgender ayaa jiraan wiilal transgender gabdhaha jiraan lesbiyaanaha jiraan sababta aan u leeyahay konton aan dheerahay waxay tahay anaga waxaan ahay ragga bas excuse my language sometimes vulgar ayay noqotaa ragga basanahay ninka rag basana 150 u dheeryahay marka 150 aan nahay saaxiib haddii aan lesbiyaan tahayna saaxiib waxaad ogaataa marnaba aadan 50 ahayn saaxiib 100 baa tahay raggaad la siman tahay saas ogaaw adigana dadka way kala sharaf badan way kala shalaf dheer yihiin wayna kala darajo badan yihiin laakiin dadka faraxsan darajo aad iyo aad u sareysa ayay leeyihiin mideeda kale waxaad ogaatiin walaalayaal waxa anaka inoo nacba okay erag wiigoy 100 jeer daba ku soo celiyay waa kadaba laakiin waxa aynu nacdiin ayaaba jirin dadkan anaka inagu jiro dadka faraxsan waa dad xuquuqda bani'aadamka yaqaano run ahaantii aad iyo aad cunuga asagoo yar buu u garanaya right iyo wrong qalad iyo sax u kala garanaya asagoo iskuul dhiganin anoo 4 jir baan ogaa waxan inay sax tahay aanan waxa kalena ay sax ahayn aan ogaa ma aqaan so somehow knowledge-gayga maskaxda ka buuxda without someone qof ii turjumay mise siiyey mise waan ka aqristay meel aysan jirin marka dadka faraxsan waa dad knowledge-gooda aad u badan yihiin naxariista aad iyo aad ugu fiican tahay qaar baa jira xaasaska leh kuwa xaasaska leh run ahaantii waxaan maqlay xaasaskooda sida ugu roon yihiin uma maleysanaysa ani markaan meelahan aan soo istaagayo caynay oon dhahay habeenka dulmiyaan aad iyo aad aan ugu qaldanaa xaasaskooda kuwaas waxaa la yidhi waa xaasaska ugu faraxsan uguna wanaagsan uguna
labis fiican uguna qiimo badan soomaali hadday ku dhex jiraan ayaan maqlay aad iyo aad u wanaagsan yihiin wayna jiri jirta wayna jirtaa meel walbay ka jirtaa halkan waxaa South Africa waxaad ku arkaysaa nin ajnabi koleyto cadaan maan ahaan nin cadaan waxaad arkaysaa xaas leh xaaskuu leeyahayna way ogsoon tahay inuu yahay qofkaas xariir kalena wuu leeyahay xariirka uu leeyahay oo kalena xaasku way ogsoon tahay marka wax sir la yiraahdo transparency ayaa meesha ka taala nin walba wuu ogsoon yahay wuxuu sameynayo marka waxa lagu fikirayo ninkayga oo luquqaas waxyaalahaas ma jiraan marka waa dad daacado sidaas daacadooda anakana daacadnimadaas maana gaarin weli sababta tahay waxaa jiraan waxyaalo badan jiraan oo dhaqan ahaan inoo diiday mise Soomaali ahaan inoo diidaysa haddii aan taa ka gudbo waxaan kaloo soo ogaaday allahu mustacaan maxaan soo ogaaday arrimo badan aan soo ogaaday waan isii waday koleeto kowdhi waan wixii aan hilmaamo waan soo ogaaday kowdhi wixii aan hilmaamo waan soo ogaaday waxaan hilmaamo waxaan soo ogaaday waan hilmaamay ayaan ka wadaa ya kowdhi marka insha Allah intaasaan kasii wadaya hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad ayaan u sharaf u leenahay haddii aad dadka faraxsan tahay sharaf baa leedahay meel walbo ku noolaada farxad walaalayaal waad mahadsantihiin